koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan kismaayo ma jooharba maya garowa ma baydhaba maya hargeysa ma gaahalkacya maya intaa subaxa marmiya maya haddaba xay kala yihiin xaggee loo kala wada ali abtirsateen geelaynimadin geeka edaati aryaa geel jira waxaa ka sheegan qandha saar la burur badan oo gacan ku midiya badane reedaya maanta saarka iyo haanta aad tumaysaan waxaan ku soo xasuustay gabadhii tiri haddii bururka dhabyaaye bilaawa dhiig u yeel aryaa gurbaankaad ku heestiya codkaaga gabarhtuu egaan ku soo xusuusnaya hadda ka hor nin odayhu wuxuu yidhi how hadday goodobtaa goobtaa taal ku geftoo geebeerayga ron hayah ou yidhi waryaa gabaan gabarha ku sheegan haddii kale gowsaha lagaa jebinayaa war aniga haan la tuma waxay ugu fiicnayd shar iyo shaydaahan la naarey shiday shurugaha ku rac horta cadawaa badan yahe haan xaad la tuntiin wax kaloo tuntiin miyaad weydeen nimanka waqti ciyaara tuma lama jooge anigu waxaan dhihi lahaa dad qalkiyo dilayaashii cid kastoo u daraata daa'imow rabbigayow ka badbaadi dadkeenna dad qalkiyo dilayaasha dalka maanta ku nooli kolley daacish iyo shabaab weeye daa'imow rabbigayow ka badbaadi dadkeenna wareedhahaya kuwaad sheegaysiin waa u daran yihiine wax dila keligood ma ahan ninku dila ninkii soo diraa kaaga sii darane dilbiyaa dil kuu dhaama dufwaqay ku baxaane warnimayo nin baa waxaan idhi dadkeenna maxaa loo dilaa markaasuu wuxuu igu jawaabay maxaad u nooshihiin baa loo dilaa nabee dadku dhibow qabaa minixaad u nooshahana loo dilaayo haddau dhintana xaad ku soo dhimata la weyddiihayo warnimayo nin waalan ayaa u yimid aroortii niman shabaaboo fafadhiyo qaxwo cabbaya meel makhaayada wuxuu yidhi soo shabaab maa hidin waa yidhahdeen haa maxaa idin fariisiyu yidhi maxaa jira ilaahay wuxuu yidhi war maadinkan inaad dadkii hoos jiray kor u soo dallacdaan dadka kor joogana hoos geysaan shaqadiinnu ahayn fadhi miyaa idin yaal ilaa yoomidiin idinka socdu yidhahdaa shabaabtiin ninkaas maa waalan mugga nimankaasooba shaqadoodu siday ahayd ugu tilmaamaye war hadda ka hor afhayeenkii ciidanka yuganda ee amisom bariijiye buhuuka wuxuu yidhi shabaab nimanka la yidhaahdaa shaqo badana oo karti badana oo orod badana oo adkaysi badana alla u yaa dantooda waafajiya iyaguna markaas waxay u bixiyeen beenaala buhuuku aryaa buhuuka nimanka waa u duceeye yaa ka aqbalaahe war ninka ajnabiga ahaa ee maalin dhow aeroboortka laga qabtay isagoo wax indhaha wax ka keena wata xabsiga dhexaa loo gudbiyaa layidhi horta ninka caddaanka xabsiga dhexe habe loo gudbiye maditoor muusaa xukuma mase korneyl shuutaa xukumay war lama xukumine intii baaris ay ku socoto ayuu xabsiga dhex jiifaya waa markii u horraysay ee 27 sano kadib xabsiga aan dhigno nin caddaan ah weliba haysta laba dhalasho welibana ka soo jeeda dalalka waaweyn ee reer yurub taasina waxay caddaynaysaa inay soo noqotay dawladnimadii sharcigana loo siman yahay markaa ra'iisul wasaare bangiga dhexana ma nin ingiriisaha la geynayaa xabsiga dhexana ma nin ingiriisaha lagu xirayaa yaa ingiriis maa loo daaha kii la raacdeeyaba ingiriisow ahaay iya kamaanu howla'nahay war xabsiga dhexe daash iyo al-shabaabaa ku xidhane ninka caddaanka ama wadna xanuun u dhintaa war inuu ayaga la shaqaynaya sooma dhici karto anigu inuu iyaka ku biiraanba ka cabsaha war ma haysaane gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi wuxuu ku biiray wufuudda garowe isugu tagtay marka ma arbitaru ka noqon doonaa qudbooyinka idka soo horjeeda meesha laga akhrin doono mase isagaaba qayb ka noqon doona qudbooyinka meesha ka dhici doona kaftan kulul weeyaa la yidhi oo kalamaana kaftan waraaqad ku qoranna lagama ogola raalli ahaada hadda waan kaftamaynaa madaxdii sarsare oo kala hore sawdka lagu doortay iyo kuwii saluugoo wakhtiga sugi aqoo waayey garowow sallaxay baa layidhi suuq siyaasi ah aryaadhaha madaxda puntlandna waxay dhihi doontaa martida noo timid ee kalamaanka raalli ahaadha kuwii horuu joogee kalamaanka ahayna raalli ha ahaadeen shirib horaana wuxuu ahaay how rijaal inyarii loo qaalay raalli ahawna ka rabta rijaal inta
gaari loo qaalay raalli ahawna ka rabta haye waraadhaa madaxweynaha hirshabeelle baarlamaankii hirshabeelle markuu wasiiro iyo wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku-xogeenayaal ka wada dhigay oo dhammaantood ay wada taabiceen ayuu maanta kalfadhigii u furay xeeladaas nabad inoo laa bartay waa arday imtixaan ku baasi warni gaashaana la yidhaa oqaashay tubti tush lama celshaan waari amow aniga uun madax iga dhigay xabadu kama jirta waxaas war mijowkaa dhigaya dulqaado mugga maja layga dhiga maanaa laygu hadaafaa mugga ariima rabo warnimiya walamashiidin walsiin sheegoy guddoomiyaha baarlamaanka madey mursal baydhowjanaha kunagadi haskunagado muhuma abuu mansuurna mahadhiine ogaadahe war siduu sheegay abuu mansuur inuusan soo daynayo inuusan xilka ka tegin isku darsan maayo guddoomiyaha warka ku celsha warwar ma haysaane shiinuhu adeeg cusub oo tiknolojiyaha soo saara oo moobeelkaaga aad ka isticmaalayso ablikeeshinkaas haddaad isticmaasho ood moobeelkaaga ku isticmaasho qofka daynta kugu leh 5 kilomitir markuu ku soo jiraad moobeelkaaga ka ogaanaysaa kadibna jiiraad la rogmee tolow shiinaha majaadwalay leeyihiiniyo warnimiyaw shiinaha tuugii warkadandirati arroykaasu anu ugu raylahay habro badanaa dayn ugu leh ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wuxuu yidhi switzerland inay 4 safaarood ku lahaato etoobiya eritreya jabuuti iyo soomaaliya looma baahna mustaqbalka dhowna hal safaarood inaan yeelnay rajaynayna buu yidhi war 4 waddan waa ogolnahay inay switzerland hal safaarad ku yeelatee caasimaddu waa tee ay ka furanaysaa war caasimadda gaalkacaya laga dhiga taas haddii addis ababa laga furo nabe inaanaan yeelay war yaa meeshay rabaan ay ka furanayaan maadaa kaa xiga war mayna isdhibtan baydhawilku furayha